هلو أصحابتا وايد السلامي رير أمريكا waxay idin tahay aan umaleynaya habeenimo aniga waxay ii tahay subax 10:18 in the morning ay tahay saacada Nairobi waxa idin ka codsanayaa qof kasta oo igu jira Facebook inuu barnaamijkan ii share gareeyo ii share gareeyo shimee idin kugu dambeysay ii share gareeyo la idin dhaho ii share gareeyo waliba anigu aan idin dhaho ii share gareeyo share igu qabta Minneapolis waa soo jeedin xilli fiican idin tahay ya share ku qabta ay soo wicina يا إسقاري 314 وجدا وحن لوما باهنا ناسا لا اسك غراعايا كرباش حلال واي ايشر غريا بليز ايشر غريا waxaan rabaa hadda hurdo ka kacay saa dareemaysaan codkayga waxa waay 10:19 subaxii noo tahay waxaan ugu tala galay xilligan aan u soo galay in ma aragtay Soomaaliya especially Muqdisho oo soo jeedo subax ay u tahay iyo Minneapolis ay u tahay fit ama 1 o'clock hadda soo qiyaasay 2 o'clock waa gaarteen u maleynaya 2 habeenimo idin tahay waa idin ka soo gaaray intiina soo jeeda ugu filan inta kalena bari subax in share gareeyaan waay muhiimadaydu waxay ahayd Minneapolis iyo Muqdisho inaan isku helo insha Allah share gareeyo share gareeyo waxaan waa igu yar yahay ma hadli karo yaakh ana waxaan rabaa in xamar laga daawado live kan Minneapolisna laga daawado Europe-na laga daawado marka waa idinka codsaday share gareeyo share gareeyo ما ولي كيف موجودي بي عيبين وسين وعيبين ليسين صان ما أهان شريننا شare قرية برنامجك سكوت share قرية share قرية حقا كهاد لينا يا أخي حقك جنب الشمال لها حقا كهاد لينا share قرية وهذا ظلمي قاعد لعبتينا ده تعيشين صح هذا نو share قرية برنامج كان share قرية share قرية بليز 10,000 كيان ربع أنيقا 10,000 كيان ربع برنامج كسر قرية wankay ma deeqday waa iska sii bilaabaha laakiin waa iska bilaabahaaya waxaan rajaynayaa topigan markaan u gudo galo inaad meel kasta gaarsiisaan insha Allah markaan ka baxana aad sii share gareysaan intaan ku jirana aad share gareysaan aan idin ka codsanayaa oo ummadda Ilaahay meel kasta joogto ay daawato reer Europe iyo reer America iyo reer Muqdisho ay daawadaan saasaan rajaynayaa ana hadda hurdo ka kacay wili xataa wallahi shaax ma cabin subaxii ii tahay 10:22 subaxii waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ma aragtay murugadeeda leh xanuunkeeda leh
waxaan horta marka ugu horeyso aan la qaybsanayaa murugada iyo xanuunka walaalahay reer cabdi dollar oo aan Minneapolis-na daris ku nahay reer qaybtoodna Sweden ay degan yihiin family-kita kalena aan daris ku nahay Minneapolis reer cabdi dollar murugta waa idin la qaybsanayaa waxa idin ku dhacay aadan uga xumahay aniga shalay toole Nairobi shalay ciid u ahayd Soomaaliyeey shalay toole aniga Snapchat-kayga iyo Facebook-kayga iyo media-hayga ciid wanaagsan anoo ku qoraay ma aragteen anigu shalay ma ciidin sababtoo ah waxaan u ciidaynin oonan u ciidin waa baxay oo qadaan aado waa soo noqday laakiin ma ciidin mana idin la sheer garaynin ciid wanaagsanna idin ma dhihin sababtoo ah waqti aan farxo ma ii gelin mana ii ahayn xilli aan farxo dad walaalahay ah ana aad u jecelahay daris aan ku nahay Minneapolis ayaa dhibaato gaartay Facebook-gayga waa ku soo qoray wiilka sawiradiisa waa soo dhigay waan ka hadlay qoraal ahaan laakiin waxaan ii sheeg ku mashquulsanayn ii sheeg lasti maanta waa arbacadii la soo dhaafay wiilkaas xamar lagu qashay arbacadii la soo dhaafay wiilkaas dhibaatadu ay gaartay ilaa arbacadii la soo dhaafay ilaa iyo shalay toole inta aanan qoraalka soo qorin waxaan isku talaagaraynay inaanan media-ba soo gelin oo wax allaala wixii aan xog hoos u raadi karno ama aan hoos u xallin karno inaan hoos u xallino ama aan wixii aan xog ah ama caawimaad oo hoos u raadi karno aan hoos u raadino arrintu waxay ka maarmi weysay in media-han soo galno way ka maarmi weysay in arrinta media-ha la dhigo oo cid allaale cidda ay qusayso loo sheego way ka maarmi weysay waxaa dhacday Shaafici Cabdi Dollar oo wiil yariisoo baby ah from Sweden ah inuu asaga iyo hooyadii ay ka tagaan Sweden waxay tageen magaalada Muqdisho wiil yar oo Soomaaliyeed oo from Sweden oo qurba joog ah horta qurba joog ay waa la idin soo galay waxa la yiri geeridi galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa geeda balaayada la yiraahdo markay adiga ka maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalka maqal ma jira war may maqashaan may maqlaysaan way maqashaan may maqashaan maqal ma jira ha soo qorano ha ii soo qora hadaad maqlaysaan way codkayga hadaad maqlaysaan ha ii soo qora Firdawsa thank you thank you so much waxaan idin sheegaa waxa la yiri geeridi galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa balaayo intay adiga ka maqan tahay horta hore waxay ku maqan tahay cid kale wixii balaayo oo dhan ilaahay naga haayo qadarta ku dhacday reer cabdi dollar waxaan leeyahay ilaahay dartiis ugu sabra wax walba oo dhacay sabra la idinka rabaa ilaahay qalbiga idin qaboojiyo laakiin dulmiga leedu ku sameeyay ma aha mid aan ka aamusi karno waxa dhacdo walaalayaal Shaafici arbacadii la soo dhaafay inta may ku taala waaye marka wiilka dhibaatada loo geysto oo la qasho lagu dilay xamar asaga iyo hooyadiisa Sweden ka tagay xamar ay tageen wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisi aaday hadduu rabo xeeb oo ku dabaasho hadduu rabo meel oo ku raaxaysto ku dalxiiso Bambaaso oo imaan kara wuxuu tagi karaa Tanzania uu tagi karaa Mareykanku uu tagi karaa meeshuu rabo tagi karaa oo safe u ah wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisi xiiso iyo hilo oo u qaba dartiisa hooyadiisa raacay xamar tagay asagoo liida jooga nin ciidan sheeganaya waliba nisa ciidanka la dhahay inuu ka tirsan yahay la sheegay ayaa wiilkaas asaga iyo ninka iyo niman kale oo isla socday waa askariya lagu leeyahay ninka oo wiilka afka la galay ciyaalkan qurba joogtaas u taqaanaan ba qurba joogta ciyaalka say wallahi si fiican u naqaanaa dadka dulmiya ma aha way murmeen markay murmeen uu iska kacay in Cabdi Dollar uu istaagay Shaafici uu iska dhaqaaqay inta loo soo istaagay lagu yiri waryaa see u dhaqaaqi kartaa say anagoo kula hadlaayo saa u dhaqaaqi kartaa waa iska taqaanin xamare waxay iska jecelihiin hadduu xataa uu dabla yahay hadduu xataa uu taraafiga jidka taagan xamar oo yahay wuxuu jecel yahay talaya in loogu waco aniga xamar waa tagay laf talaya in loogu waco wuxuu sameeyay cunug yaraa uu ka daba tagay wuxuu yiri maxaad ii ignore garaynaysaa waryaa anoo kula hadlaay saad u kacdo yiri markaas uu warneeyo isma naqaano ismana fahmayna iga dhamow marka hore xabado iska soo jaray gacantu uga dhuftay ka bacdina waa laga qabtay midida baynaada la dhaho oo ciidamadu ay xirtaan midida baynaada la dhaho oo inta qaatay halkaas uga bilaabo ilaa gumaarka ku geeyay beerku si dhaxmarsiiyay kiliyihiisi ma aragtay dhaawaca gaaray meel kasta caloosha waa aragtay suu u talan yahay Shaafici Cabdi Dollar wiilkii meesha ma aragtay dhibaatada ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abay telefoonka qoraalka aan ku soo dirsaday kiina si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo informationkiisa waan raadinay ruuxaantii waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cid xukunta waan raadinay ninka dhibaatada geystay waxa la yiraahdaa ninka waxa la dhahaa Umarey Awkaate
waxa uu joogaa iridda aeroboorka Marina Gate la dhaho Marina Gate la dhaho joogaa waxa la dhahaa Cumarey Awkaate waxa uu joogaa iridda aeroboorka Marina Gate la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda waxa taliye u ah nin la dhaho Cabdiqani Jaalle oo haysta iridaha aeroboorka oo dhan waa idinku soo celinaa informationadii aan helnay oo raadinay markuu wiilka isbitaalka galowkoomaha galay ninkii meesha waa ka cararay ee askariga ahaa informationadii aan raadinay oo familigu ay raadiyeen aan idin sheegayaa si fiican ii dhageysta ninka waxa la dhahaa wiilka qashay waxa la yiraahdaa Cumarey Awkaate waxa uu joogaa oo ka shaqeeyaa iridda aeroboorka Marina Gate qaybta la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda ciidamada nabad sugidda waxa taliye u ah Cabdiqani Jaalle oo haysta iridaha aeroboorka oo dhan okay markii Shaafici markii la qashay oo kooma galay waa arbacadii la soo dhaafay oo isbitaalka hooyadiis ay meeshii ma aragtay cid la ciirsalo ku noqotay oo cunugeeda isbitaalka maamada ay la gashay dad ehela ayaa damceen inay raadiyaan ninkii iyo informationkiisi waa lagu mashquulay waa la raadiyay ninkii waxa la soo ogaaday arbaco wiilka dilay khamiis bin iska shaqaysahay oo aeroboorka joogay okay ninba taliye u ah marka xamar saa ogtiin hebelaw Cabdiqani Jaalle oo ninka taliyihiisa ahaan raadinay waa lagu mashquulay waa la raadiyay arinta waa la wargeliyay waa loo sheegay waqtiga la geliyay wuxuu dhahay warqado soo samaysta anugu xamar dadka ayagoo inta dadka la qaso oo dadka la dilo haddana qofkii dhibanaha ahaa ee dacwada qabay in lagu dhaho inta soomar xagga soomar warqado soo samayso waxaan ku xirna keen dacwad soo furo adigu familiga waa dadaaleen intii tabartooda ahaa wixii marba warqad lagu xiro shalama daraada sheekadu soo gaartay ninkina aan la xireynin adigu arinta aniga markii la soo gaarsiiyay qayladaan ma aragtay aad u dheeraan diray xamar waxaan wacay cid allaale cidaan isdhihi karay connection waa laga helayaa inay ma aragtay ninka Cabdiqani Jaalle la dhahayo inay bal weydiiyaan sababta uu ninka u soo xiri laayahay sababta Cumarey loo soo xiri laayahay in Cabdiqani Jaalle la weydiiyo meel dheer baan u marnay dad aan isdheeynay waa connection fiican ay haystaan oo wax galay ka yihiin xamar oo ma aragtay dawladda waxbay ku jiraan waa raadinay adigu dadkii marba mid saan u helaynay arinta markaan u sheegnay qof kasta uu naxaysan qalad waay in mar hore la soo xiray Cabdiqani Jaalle waa raadiyayna hadday ka dhace sidii loogu hayay arinta waxay ku soo biyasbatay yesterday oo shalay ciid noo ahayd Nairobi ma ahay maalintii habeenkii ka horeeyay in hadalkii ugu dambeeyay ee nalasiya uu noqday wuxuu yiri Cabdiqani Jaalle ciida la soo galay maantana waa soomanahay horta ninku ha ciido qaatilkii Shaafici Cabdi Dollar qasay ha ciido Soomaaliyeed halkaas ay horta xamar waxay mare qaatil wax dilay in lagu yiraahdo ninkii taliyaha ahaa oo ku yiraahdo ha ciido waa soomanahay ciidna waa ku jirnaa ha ciido qaatilkii la rabaa in la ciidsiyaa nin wax dilay la ciidsiyaa sawirada Facebook ay ka aragteen Shaafici Cabdi Dollar saa aragteen loo qasay ya waa dhibane waa wiil yar oo wadankiisa soo booqday oo gardarro lagu qashay حتى وحيابا بدنا أفلقادا حتى نكاس ما عرفت ضدك دعوة سلوك بيو كسو يرتي عنق بالود ما ولا هايو عنق معب سنايو عنق سان ما هايو وحالدين شيء يا صومالي حمر هوساسا كسعته حمر ساس يكون دنبيسي وحرر أمريكا هل كان نباق وقدرون الكل يوابد بدلان وحبي بدلان دور اسكو شاكت حمر كشفتي وحبي بدساي نيكا كوفي لرها أو وحي أيربار iyo immigration ku saabsan ninkii haystay ee Kofi ahay anigu aan ku ogaa war mudane Kofi oo ma lagu beddelay ma soo joogtaa ninka Kofi la yiraahdo ii sheeg madaxda oo ma lagu beddelay hadaan lagu beddelin oo joogto arintan adigay kugu soo biyo subatay way ku qusaysaa lambaroon adiga ayaa ah Kofi iyo anybody oo quseeyo aeroboorka iyo immigrationka xukuumaha sida Cabditax Shaaweeyo kale xataa xalay toole hadal aniga aanan hubin ayaa ma aragtay lii sheegay laakiin waa soo hubsanaya publicna waa ka sheegaya Cabdiqani Jaalle ninka la dhahayo inuu Cabditax Shaaweey dadka u shaqaalaysiiyay oo uu ma aragtay keenay inuu ku jiro ayaa xalay xog ah laysiinayay ma huba laakiin tan ka weydiiyaa Cabditax Shaaweeyo hadaa Cabdiqani Jaalle taqaano Cabdiqani Jaalle hadaa taqaano wuxuu xukumaa Cumarey oo ah qaatilka toogtay Shaafici Cabdi Dollar saa aragta u galay
marka hadday koofi tahay iyo hadday Cabdifatax Shaawe tahay hadday anybody oo madax sheeganayo oo ka ah immigrationka iyo airportka qusayso waxaan idinka codsanaynaa arrintan inaadna meermeerisaan oo ciid nagu mashquulisaan oo leeska ilaawo ma dhacayso cunuga yar wada sharci ka jiru ka yimid Sweden oo ka imaaday ilaahay ha u boogadhayo ilaahay ha caafiyo laakiin waxaan idin sheegaa isxaan noomada sameynina waxaan kaloo idin sheegaa qurba joogtay waxa la yiri dhibaatada maanta hadii dhibaatada qof kale walaalkaaga ku dhacday aad aragto ku tasho inay kugu dhici karto adigana maanta waxa xamar lagu qalanayo waa caruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah marka qof kasta oo hooyo kasta iyo aabba kasta oo cunugaaga markaad xamar geyso waxa Shaafici ku dhacay waa sugaysaa hadda sheer garay weyso hadda ka dhiidhi weyso hadda ka hadli weyso waa ifaanteena u malaynaya marka koofi iyo Cabdifatax Shaawe iyo cid walba ee immigration iyo airportka ay arintoodu ay maaragtay calashan madax ka ah oo meesha wax ka ah Cabdiqani Jaale oo xukuma Cumarey oo wiilka saa u qashay wuu diiday inuu soo xiro Cumarey muhiimadda Cabdiqani Jaale laga rabo waxay ahayd inuu soo xiro Cumarey very simple inuu soo xiro laakiin in la yiraahdo ha ciido qaatilkii ha ciido in la dhaho waa ayaan darrada hadda haysata waa inaan Soomaaliya rajo badan oo aysan ka soo socon waa in ma aragtay maalin ilaahay keena maalinta ka dambaysa aad ka niyad jabeyso xamar sometimes waxa isleedahay war ilaahow ma ehelkaaga iyo aabaha iyo walaalahaba hadda ganaadaan ilaahow ma xamar oo dhan dhulka ma igasho calashan way kugu kalifaysaa marka aragtay cadaalad darrada ka jirto xamar dambaba yaan dib loo arkine ilaahow rabbiyo ma dhulka la goysid way kugu kalifaysaa wayna ku gaarsiinaysaa marka waxaan idin sheegayaa reer Muqdisho inta aad cadaalad darradaas fiirsanaysaan oo noloshiinu ay saa tahay horta ha suginina inaad nabad heshaan inaad raaxaysataan inaad ma aragtay xamar ay isbedesho ha suginina hana u fadhinina heerkaas ay maraysaa waxaan leeyahay cid allaale cid arrintan ay qusayso inay ka soo hadasho videogaygan waa inaa share garaysaan waa inay cid walba ay qusayso koofi oo kale hadda aan magaciisa sheegay Shaawe kulli waa inay gaarto waxaan idin qarina malaha arrintu waa taasaha inta isku dayi karna inaan meediyaha aan ka wareegno oo arrinta aan hoos u raadinana waa u raadinay inta karaankayga ana familiga waa la dadaalay cid walba connection ka hayaan wacay ilaa had wax ka soo naas cadaanay male resultigi wuxuu noqday iyo jawaabti qaatilkii ha ciido Cumarey ha ciido soo maahan waa inuu ciido soo maahan qof halka ay tumidi uga bilaabay xabad ku bilaabay markii laga qabtana tamidiyay ya oo koomo ku jiro wiilkii ee familigaas oo ma aragtay meeshas ay wax ugu miciin familiga ay waayeen oo la iska daba wareejiyo oo warqado lagu xujeeyo oo waxaan loo joogin lagu xujeeyo markii dibna jawaabtoodu noqotay ha ciido soo maahan waa isu joognaa reer Muqdisho videogan share gareeya waa idin salaama inta samaha jecel kor Allah ka dhigo ree Cabdi Doolarna waxa idin gaaro waa ka xumahay aadan uga xumahay Shaafici waa walaalkayo kale aadan murugta idin la qaybsanaya shalay toole aniga ma ciidin meelaan ciid ku soo qorayna malaha waxa arkaya dad badan oo baraha bulshada kamid oo qaarkood aan wargeliyay guddi doorasho iyo waxay soo qorqorayeen ay ka hadlaayeen qaarkood inay ma aragto waxyaabo aan necessary ahayn inay ka hadlaayeen marka maybe anigu dad badan oo ku tastaajiro oo anaga haday arrintan ka hadlaan ila karkarin kara oo meel fiican gaarsiin kara laakiin ciidna way soo gashay dadkina qaarkood waa family waqtigi waa kala duwan yahay Europe oo kala aad u kala duwanahay cid kasta oo public figure oo aan ma aragtay gaarna ula hadlay habeen hore oo aan sugayn arrintan ka soo hadashay cid kasta oo wax gal waxaan rabaa in arrintan ay ka hadlaan ay sii gudbiyaan murugadan aan la wada qaybsano kulligeena insha Allah ree Cabdi Doolar waa idin salaamaya ii share gareeya arrintaas waxaan filayaa insha Allah inuu baaqeeno uu gaaro dawladdan isku sheegtuna ay wax ka qabato saasaan rajaynayna waa idin salaamaya in badan sharta igu qabta